بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شيخ. waxaa jira dabo loo cuno xubinta taranka ee ragga taas oo xoog ku siinayso iyo xagga dhirirka ama balac xagga xubinta taranka ee ragga diinta islaamku maxay ka qabtaa hadaan cuno dawadaas ama aan isticmaalo? الحمد لله. طبعا حاجة هي باهي وهي وحدا بالوضعنا معها الرماهاس هي تساؤل كي كهذا الكيد وحدا بالوضع معها ودي وحن وطبيعة بشرية خلق بشرية أمور آدموي انت إذا التاريخ يسوس عتي آدم هنا فهذا الرق يدمر كي يحبناها ترك وينسوشرتي ولذلك يفق هذا أن علماء أن كوي هراء iyo kuwa hadda xilligan joogaba aad uga hadlaan arrimaha la xiriira kutubaa laga qoray ama masaladan ha noqoto ama masaa'ilka la xiriira ha noqoto qaar baa risaale qoraallo master lagu qaatay qaar baa PhD iyo doctora lagu qaatay oo kulliyadka fiqiga shariicada ah waxyaabaha marka dadka laakiin dadkeenu marka laga hadlayo waxa laga yaabaa in su'aasha weydiinteedu dad qaar badan dhibsadaan in ka badan intaana ay sii dhibto jawaabta laga bixinayo su'aalahan oo kaleeto waxaan rabaa marka hore inaan dadka maskaxdooda ku dajiyo waxani waa baahisha bi'aadami ah wey baahidii aadamagana waxay keentaa aadamuhu culumtooda iyo tajaaribtooda baahidaas in la xalliyo inay ka shaqeeyaan haddaba qofku inuu u baahdo qaabkan aadamuhu mushkiladan u xalliyeen ee loo soo bandhigay xalkeedu shariicadu ma ogoshahay inuu yidhahdo arrin wanaagsan wey waxay fuqahadeenu kutub ka qoreen mas'aladan lafteeda waxay ka hadleen mar waxay ka hadlaan xubnaha la tallaalo markaas waxaa kamid ah waxa laga hadlo xubnaha tallaalka xubnaha taranka kuwa ragga iyo kuwa dumarkaba haday qof xubintiisa wax ku dhacaan oo qof kale oo dhintay iyo wax lamid ah rag iyo dumarba xubintiisa taranka inta la gooyo qof kale lagu beero ma banaanta waxyaabaha marka dooda culimada dhageysato qoliyo ogol iyo qoliyo aan ogoleynba faniga ah waxaa kamid ah in la leeyahay ninka xubin taran oo nin kale lagu beeray ama lagu tallaalay ama qofka dumarka ah ee xubin taran oo iyadu aynan lahayn ama min aynan lahayn keedii inta la jaray lagu beeray xiriirka ay sameynayaan ee gogoleed ma koodii bay sameynayaan mise xubno dad kale ay xiriir gogoleed ku sameeyeen ninkani xaaskiisa markuu u tago isagoo xubin kale lagu tallaalay ma isagaa u tegey mise cid kale u wakiil ka yahay mana dooda iyo su'aalaha la soo dhigay kamid tahay haddii hooyada min la soo gooyay lagu beero oy uur qaado ilma ay dhashay bay wadaa mise ilmo iyo min ku jira bay caloosheeda u kareysan tahay mana dood mashhuur culimada iyo majaamicda cilmiga ee fiqiga iyo buxuusta iyo jaamicaadka iyo qoraallo badan laga sameeyay kuwa horena ay ka hadleen marka ayaan la qariibsanin ama waxaan maxaa loo keenay iyo dadku xishoon maayaan ilaahay baa in Allah la yastaxii min alxaq saxaabiyadka qaarkood markay su'aal weydiinayeen waxay rasuulka ilaahay xaq kama sariigto haweenta haday biyo shahwa ka yimaadaan qabays ma laga rabaa midag joogtay waxay tiri bala kugu dhacday maxaad haweenku waad ceebaysay nabigu tii tiri wuxuu ku yiri taribat yadak bima yakunu shabah ilmuhu si hooyadii ugu ekaada hadayna biyo shahwa lahayn marka su'aalaha saas oo kale la isdibsada way haan jirtay su'aalaha kale la qariibsan waxa kamid aha nabigu Abu Bakar iyo Umar iyo golo fadhiya bay gabar u timid nin bay kala tageen saddexdii baa u kala dhamaatay nin kale ay guursatay ninkii kala qancin waayay gogoshi hada rasuulka ilaahayow nin rifaaca la yiraahdo ay guursaday saddexdiina way iga dhamaatay kadib Cabdiraxmaan ibn Zabiir nin la yiraahdo guursaday ma maahu illa mithlu hudbati thawbayt meesha waxa uu ku hayaay wax jilcisan oo marada oo kaleeta waxay weydiinaysaa waa nabiga waxa weydiinaya waa gabar saxaabiyada goobtay ku weydiinaysaa meel gaar ah maaha daleeno hadda fagaaran fadhinaay Abu Bakar baa fadhiya Umar baa fadhiya Umar waa dhibsaday laakiin nabigu ma dhibsan su'aash wuxuu yiri marka hadalkii wuxuu ka fahmay ninkani ma anfacaye mar haday saddexda kadib nin guursaday kayga hore asaga noqdaan rabaa
wuxuu yidhi maxaa rabtaa inaad rifaaco ku noqoto soo maaha wuxuu yidhi laa xataa taduuqii cusaylatahu wayduqa cusaylatak ilaa si fiican isu dhadhansataan kii hore kuma noqon kartid waxay rabtayna waa sheegay waxa ka horeeyay in la helo ay tahayna waa u sheegay marka su-aalahan hadday baahi tahay qofku uu ku mahadsan yahay saa'ilka inuu weydiiyo waxaan shariicada muwaafaqsan yahay bini aadamkii waxaana suuqa yaalla su-aasha haddaan u soo noqdo jus-iyadana maan ka jawaabi jus-iyaadka kale waxaan dhihi lahaa risaalada maajisteerka ee laga qoray dadka dalabatulcilmiga ha ku noqdaan la yidhaahdo alitisaalu ljinsi bilwasaa'il alxadiida xiriirka gogollada ee dhexmara rag iyo dumarka iyadoo la adeegsanayo waxyaabaha cusub ee casriga ah ama balastic ha noqoto xubin balastic laga dhigay ama tu qof laga soo gooyo lagu tallaalay ha noqoto ama iyadii oo lafteedii balastic hoosta lagaga sameeyey ama mishiin yar lagu rakibay ha noqoto ama wuxuu tilmaamayaa qayb ka mid oo culimmadu rasaa'il ka qoreen waxyaabahan fiagarada la yidhahda ha noqoto rasaa'il baa laga qoray marka waxaan rabaa inaan iraahda dawadan la isticmaalayo dhibaato ma laha hal shardi baa ku xiran keliya hal shardi keliya ku xiran inaynan keenaynin isaga ama cidda uu xiriirka gogosha la sameynaya dumarka iyo reerkiisa inaynan dhib ka badan u keenaynin oona khatar caafimaad lahayn hadduu wuxuu khatar caafimaad leeyahay ama isaga gaadhsiinayo ama uu gaadhsiinayo cidda kale lama ogola laakiin khatar caafimaad hadduusan lahayn sida kiniinada la isticmaalo oo kaleeto dhib ma laha laakiin waxaan kula talin lahaa qofkaas intaa ka badan inuu baaro dawooyinkan intaan ka aqriyey anugu dee mar walba dawaa soo baxdo laga yaabaa side effectiga iyo dhibkay leedahay in la yareeyo laakiin inaan horeen aqriya anugu side effect iyo dhib badan bay leeyihiin laakiin waxaa ka side effect yar waxaan qaabkan masaajka masaajka haddii uu rabay dheerayn ama ballaarin system masaaj oo waxaa jira saliid iyo saliid zaytuun iyo wax la isticmaalo inuu kuwaas isaguna uu isticmaalayo xataa qof kale uusan u baahnayn oo ama raga ama dumar inuu cawradiisa uusan u baahnayn systemkaasaa jira waxyaaba badan oo xogteeda oo laga iyo xogteeda ahna netka uu ka helayaay intaa ka badan usii dhaafi maayo dee meelaha inuu ka raaraadiya ila qombilay tawfiiq